Assalaamu calaykum. Soo dhowaada asxaabey. Maanta waxaa idin sharxi doonaa filim Amerikaan action iyo horror ka kooban oo soo baxay sannadii 2022 ciwaankiisuna yahay Day Shift. Haddaba daawo oo taxaddar. Filimka ayaa ku bilaabmaya nin barkadaha nadiifiya oo Bud la yidhaahdo, kaasoo ka shaqaynaya guri Los Angeles ku yaala. Si kastaba ahaatee markii uu mulkiilaha guriga baxay, Bud ayaa qalabkiisa ugaarsiga soo xirxirtay oo u dhacay guri u dhowaa. xaqiiqdii isagu waa ugaarsada dadqalatada faantooda maadaama lacago badan lagu iibiyo. Wuxuu la kulmay islaan da' ah oo in muddo ah dadqalato ahayd, waana uu dilay. Intaa ka bacdi wuxuu la baxay labadeeda faan oo uu ka soo dhaqaajiyey meesha. Bud markuu guriga yimid wuxuu ku qabaysanaya walax jaale ah oo dhegdheg lahaa. Kadib gabadhiisa Paige la yidhaahdo ayuu ka soo waday iskuulka oo uu jalaato u iibiyey. Kadibna wuxuu u waday guriga xaaskiisa uu furay oo ah Jocelyn. Bud isla markiiba wuxuu ogaaday in Jocelyn aysan awoodin inay Paige ka bixiso qarashka iskuulkeeda iyo lacag qalin loogu samayn rabo. Sidaas darteed iyadu waxay qorsheynaysaa inay iibiso gurigeeda oo ayna Florida ula guurto gabarteeda. Isagoo aad uga xun in Paige uusan arki doonin, ayaa Bud wuxuu ballan qaaday inuu keenayo lacagta ay gabartooda u baahan yihiin si aysan ayaga u guurin. Jocelyn waxay u qabatay ilaa 2 toddobaad si uu lacagta u keeno. dhan kalena guryaha dalaasha oo Audrey la yidhaahdo, taasoo sidoo kale ahayd dadqalato, ayaa la hadlaysay nin kaloo dadqalato ahaa kaasoo diiday inuu amarkeeda u hoggaansamo. waxay isagoo nool ninkii ku aastay guri cusub oo la dhisayay. Bud wuxuu aaday dukaan uu leeyahay qof ay isku dhow yihiin oo Troy la yidhaahdo si uu faanta uga iibsado. Troy wuxuu rabaa inuu qiimo jaban ku helo faantan, wuxuuna sheegay in haddii Bud uu lacago badan ku rabo faantan ay tahay inuu ka iibsado urur dowladeed oo dadqalatada u gaarsata, kuwaas oo hadda ka hor Bud soo buriyey. si kastaba ahaatee Bud ayaa weli Troy lacag ka helay isagoo ka iibiyey mid ka mid ah faantii. markii uu baabuurka ku laabtay waxaa soo wacay Paige. hadda Bud waxaa ka go'an inuu keeno lacagta waxbarashada iyo qaliinka gabartiisa si aysan uga fogaan. wuxuu la xiriiray saaxiibkiisa kale ee lagu naanayso Big J oo caawimaad ayuu weydiistay. dhan kale Audrey waxay aragtay meydka dadqalatadii uu horay Bud u dilay. way u oysay kadibna guriga ayay urisay si ay u ogaato cidda wax dishay. ayada iyo kaaliyaheeda ayaa ogaaday in gacankudhigluhu yahay hal qof, kadibna waxay go'aansadeen inay raadiyaan. Bud wuxuu la kulmay Big J, waxayna si wada jir ah u aadeen ururkii la dagaalamayay dadqalatada, iyagoo la kulmay madaxa ururka oo lagu magacaabo Ralph Seeger. waxay u caddeeyeen ujeeddada uu Bud dib ugu soo biirayo ururka. Big J wuxuu tilmaamay in Bud uu isbedelay tan iyo markii ururka looga ceeriyey qaladaadkiisii hore. si kastaba ahaatee Ralph taa ma hubo, sababtoo ah ninkan horay ayuu u jebiyey xeerar badan oo ururka u yaalay. wadahadal dheer kadib, Ralph wuxuu aqbalay inuu Bud siiyo muddo isbuuc tijaabo ah. waxaa shaqada looga dhigay gelinka maalintii, inkastoo isagu uu rabay in habeenkii looga dhigo si uu lacago badan u sameeyo. Ralph wuxuu kaloo soo saaray in qof urur ka socda uu had iyo jeer Bud daba soconayo inta ugaarsiga uu ku jiro si uusan u jebin xeerarka ururka u yaala. kadib kulankii Ralph, Bud ayaa aaday qaybta xisaabinta ee ururka si uu u iibsado faantii uu waday. waxaa meeshaas fadhiyey Seth oo ah xisaabiye, oona noqday qofka uu Ralph u xilsaaray inuu Bud daba kaco inta loogu guda jiro tijaabadiisa. inkastoo Seth uusan rabin in shaqadaas loo xilsaaro maadaama uusan ku fiicnayn howlgallada dagaalka, ayaa haddana Ralph uu ballan qaaday inuu dilacsiin doono haddii uu shaqadan u qabto. Seth ayaa subaxnimadii hore tagay guriga Bud, wuxuuna arkay isagoo isu diyaarinaya ugaarsiga. Bud si wanaagsan oo lama uusan dhaqmin ninkan, inkastoo Seth uu xitaa waday quraac si ay saaxiibo u noqdaan. intay sii socdeen, Bud ayaa Seth weydiiyey waxa uu dadqalatada ka garanayo. inkastoo uusan weligiis arkin dadqalatada, haddana Seth waxa uu ka garanayaa in badan oo uu bugaagta ka akhriyey. wuxuu og yahay inay jiraan ilaa 5 nooc oo dadqalato ah. kuwa oo maanta Bud ugaarsan rabo waa kuwo dhallinyaro ah oo dadqalato isku beddelay iyagoo yar. inkastoo aanay faantoodu qiimo badan lahayn marka loo barbardhigo noocyada kale ee dadqalatada, ayaa haddana Bud wuxuu go'aansaday inuu sii wado ugaarsiga si uu gabartiisa lacag ugu ururiyo. dhan kale Audrey waxay tagtay dukaankii Troy oo ay heshay mid ka mid ah faantii islaanta waayeelka. waxay Troy weydiisay cidda faantan u keentay, laakiin Troy wuu diiday inuu sheego. markii uu diiday, Audrey ayaa sheegtay in dadqalatadu waayadii hore laga baqi jiray balse aan hadda laga baqin. waxay ballan qaaday inay awooddoodu dib u soo celin doonto ayadoo sii wadata shaqmaalmeedkeeda. markaas si naxariis daro leh ayay Troy u dishay kadib markii uu jawaab siin waayey. dhan kale ugaarsigii Bud, isaga iyo Seth waxay yimaadeen meel cidlo ah halkaas oo ay ku dhuntaan dhallinyarada dadqalatada. Bud wuxuu Seth ku amray inuu gaariga sii fadhiyo, inkastoo uu Ralph isagu ku amray inuu mar walba raaco.
Ralph ayaa markaas Seth soo wacay isagoo ku boorinaya inuu Bart raaco si uu u xaqiijiyo in Bart uusan jebin xeerarka ururka. Markii uu goobtii galay, si degdeg ah ayuu u argaxay maadaama uusan weligiis horay u arkin dad khalato rabta inay dadka cunaan. Laakiin Bart ayaa si xirfad leh uga adkaaday dhammaan dad khalatadii. Seth oo ka argaxay dhacdadan ayaa surwaalkiisa ku kaadiyey. Bart ayaa dejiyey oo guriga u waday, wuxuuna siiyey isla walaxdii jaalaha ahayd ee uu isagoo isticmaalayay. Walaxdan ayaa ah shay qaas ah oo jirka la marsado si aysan dad khalatadu u soo daba kicin iyagoo ursanaya dhiigooda. Kadib markii uu baabuurkiisa ku laabtay, Bart wuxuu ogaaday in Seth uu ka tagay buuggiisa waana uu akhristay. Dabadeed wuxuu qoraal u diray Jocelyn isagoo ogeysiinaya inuu helay kalabar lacagtii loo baahnaa oo ayna u dulqaadato inta dhiman. Markii uu guriga yimid, wuxuu la kulmay haweenay kiraysatay guri ku dhagnaa oo Heather la yidhaahdo. Maalintii xigtay, Bart wuxuu Seth ka soo qaaday gurigiisa oo uu kor ka akhriyey buuggii uu shalay ka tagay. Seth wuxuu buuggaas ku diiwaangeliyey dhammaan shuruucdii uu Bart shalay jebiyey, laakiin lama uusan wadaagin Ralph. Bart ayaa Seth ka baryey inuu siiyo dhowr maalmood si uu gabartiisa lacag ugu ururiyo, markaas kadibna uu xitaa diyaar u yahay in shaqada laga ceeriyo. Bart wuxuu aaday dukaankii Troy si uu wax uga iibsado, laakiin wuxuu arkay Troy oo madaxa laga jaray. Waxay sidoo kale ogaadeen in magaca Bart uu ku qoran yahay miiska, laga yaabo in Troy uu ku qoray intii ay Audrey jirdilaysay. Seth lamarkiiba wuxuu rabay in dhimashada qofkan rayidka ah uu Ralph la wadaago, laakiin Bart ayaa diiday oo ka baryay ninkan inuusan Ralph waxba u sheegin ilaa iyo inta uu gabartiisa lacag uga ururinayo. Seth ayaa u naxariistay wuxuuna oggolaaday inuusan Ralph waxba u sheegin. Markii uu guriga yimaaday, Bart wuxuu daaqadda ka arkay Heather oo la doodaysa nin imaaday gurigeeda. Maalintii xigtay, Bart iyo Seth waxay la kulmeen laba walaalo ah kuwaas oo caan ku ahaa ugaarsiga dad khalatada. Waxay oggolaadeen inay si wadajir ah u wada shaqeeyaan si ay u weeraraan xarun ay dad khalatadu leeyihiin oo ayna faa'iidada u kala qaybsadaan. Seth mar kale ayuu isku kaadiyey oo waa la qaniini gaaray, halka kuwii la socdayna ay si xirfad leh u laanayeen dad khalatada. Kadib markii dhammaan dad khalatada la jebiyey, Seth wuxuu sheegay in xaruntan ay ku nool yihiin noocyo kala duwan oo dad khalata ah. Walaalihii ayaa sheegay in dad khalatadu ay hadda hindiseen nooc ka mid ah daawooyinka, kuwaas oo u oggolaanaya inay maalintii caadi ula dhaqmaan dadka oo ayna habeenkii shaqaystaan. Intii uu guriga u sii socday, Bart ayaa Seth ku ammaanayay sida uu ula shaqeeyey isagoo u mahadnaqaya. Kadib ugaarsigooda, Bart wuxuu Paige u waday xafladda dhalashada saaxiibadeeda. Inta carruurta uu sugayay, waxaa soo wacday Audrey oo u hanjabaysa. Isla markiiba wuxuu dareemay in isaga iyo qoyskiisu ay khatar ku jiraan, oo si degdeg ah ayuu Paige u soo waday si ay guriga u aadaan. Wuxuu arkay raggii Audrey oo isaga eryanaya, sidaas darteed wuxuu Paige u sheegay inay dhagaha xirato oo ayna ku ciyaarto iPad-keeda inta uu raggan ka dheereynayo. Bart wuxuu gartay in mid ka mid ah raggan bursanaya uu yahay ninkii xalay Heather la joogay. Nasiib daro, Audrey waxay timid gurigii Jocelyn oo ay afduubatay. Bart wuxuu kaloo arkay Seth oo miir daboolan oo qolka dhex yaala kadib markii ay dad khalatadu qaniineen. Audrey waxay ka tagtay Bart iyadoo ka haystay Jocelyn iyo Paige, waxayna hubtaa in marka Seth uu soo tooso uu dhab ahaantii Bart cuni doono. Si kastaba ahaatee, xitaa isagoo yeeshay astaamihii dad khalatada oo raba inuu wax cuno, haddana Seth kuma aado Bart, kaasoo si dhaqsaha qoorta uga gooyey. Waxaa la yaab leh inuu Seth weli nool yahay oo wuxuu isku dayay inuu madaxiisa dib ugu dhajiyo jirkiisa. Labadoodu way baxeen oo waxay aadeen Heather gurigeeda si uu Bart u ogaado inay iyadu Audrey la shaqayso. Bart iyo Seth waxay markaa ogaadeen in Audrey ay Heather ka dhigtay dad khalato, sidaas darteed waxay ku qasbaneed inay samayso wax walba ay Audrey u dirto xitaa haddii aysan rabin. Audrey waxay daba joogtaa Bart sababtoo ah duqdii uu horay u dilay waxay ahayd iyada hooyadeeda oo waxay rabtaa inay u argudo. Intay wada hadlayeen, Audrey waxay Jocelyn iyo Paige geysay guri dhulka hoostiisa ku yaala, halkaas oo ay qorsheynayso inay Paige dad khalato ka dhigto ayna oggolaato inay Jocelyn qaniinto. dhan kale iyadoo laga faa'iidaysanaya nolosha cusub iyo awoodda Seth ayaa ay Heather isagu hagaysay. Seth iyo Heather waxay ku heshiiyeen inay Bart ka caawiyaan inuu Audrey ka adkaado. Dabadeed waxay u jeesteen guri dhulka hoostiisa ku yaala. Seth wuxuu si qarsoodi ah u wacay Big J, kaasoo si layaab leh caawimaad ugu imaaday markii saddexdooda laga adkaan rabay. Intii uu dagaal ku socday, Big J waa la qaniinay laakiin ma uusan quusan. wuxuu Bart u diray inuu kaligiisa Audrey wajaho, halka uu isaguna naftiisa huray si uu iskugu qarxiyo dad khalatadan soo badanayay. Seth iyo Heather waxay la kulmeen waardiyihii Audrey, halka Bartna uu raadinayay Audrey. Dagaal dheer kadib,
waardiyihii ayaa gacanta sare noqday oo labadoodaba garaacay, laakiin Seth iyo Heather waxay ku guulaysteen inay ninkan qabqabtaan iyagoo kala jiidaya gacmihiisa ilaa uu kala go'o. dhan kale, inkastoo Audrey ay leedahay awood iyo xawaare aad u sareeya, haddana Bud wuxuu maareeyey inuu ka aqli badiyo isagoo si qarsoodi ah ugu dhigaya fiilo dhuuban oo koronto leh. xaqiiqdii habkan waa ay u shaqaysay, maxaa yeelay marka ay u soo dhowaatay iyadoo xawli ku socota ayaa waxay si lama filaan ah u dhex martay fiiladii oo qoorta ayay ka go'day, isla markiina waa ay dhimatay iyadoo dhammaan dadqalatadii laga adkaaday. Bud wuxuu isku duubay Jocelyn iyo Paige, kadibna waxay la kulmeen Heather iyo Seth, kuwaasoo si wanaagsan dadka ula dhaqmay. Ralph iyo kooxdii ururkiisa ayaa goobta yimid, wuxuuna Bud iyo Seth ku canaananayay inaysan waxba u soo sheegin. wuxuu ku eedeynayay inay ku xadgudbeen shuruucdii ururka, laakiin Seth ayaa isdifaacay oo ku andacoonayay ilaa iyo hadda inaan la dalacsiin. markaas Seth wuxuu go'aansaday in hadda wixii ka dambeeya uu Bud ka garab shaqaynayo. filimka ayaa ku dhammaanaya Bud iyo qoyskiisu oo sii baxaya, halka Big Jayna oo ka badbaaday qaraxii oo hadda isku beddelay dadqalato uu god ka soo baxayo. subscribe sar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.